بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo darsi kale oo maxaan ku raahdaa muhiim ah darsigaas wuxuu la magac baxay solving education problems xallinta mushkiladaha waxbarashada darsiga marka wuxuu xiriir la leeyahay darsigii hore kan ka horeeyay oo ciwaankiisu ahaa system approach hanaanka waxbarashada sida loo analyze gareeyo oo waxaan ku soo sheegnay saddex qaybood aan ku sheegnay waxbarashada inay input u baahan tahay waxbarashada inay u baahan tahay process kadibna aan gaarin maxaan ku raahdaa outcome ugu dambeeya maxaan ku natiijadii aan rabnay marka outcome ka natiijadaasi quality-geedu wuxuu ku xiran yahay input-ka sidoo yahay iyo maxaan ku raahdaa process-ka la barsiiyay hadii labadaas ay yihiin kuwa high quality ah wuxuu noqonayaa marka production-kaas haduu soo bixi doono mid aad u tayaysan waa hadii labadan mid kamid la waayana natiijadii lama gaaro marka darsigan wuxuu ku saabsan yahay haddii mushkiladaha waxbarashada la soo wajahay habka loo xalin lahaa iyo istaabida loo maray mahmahooyin ayaa jira maxaan ku raahdaa la xiriira xagga xalinta mushkiladaha waxaa ka mid ah مثلا every problem has the seed of its own solution hal kasta wuxuu ku jiraa mushkiladaha ay ku jiraan yani mushkilad kasta xalkeeda wadata ayaa la yiraahdaa carabtan waxay tiraahdaa kullu mushkilatin tahmilu fi tayyatiha budhur al-hal sidaa darteed marka darsigan waxaan ku soo gudbin doonaa Ilaahay karaale noqdo xalinta habka istaabada loo maray markii mushkilad waxbarasho jirta sida loo xalin lahaa geed ayaan ku mithaalin doonaa oo geedkaas mid magaciisa waxa la yiraahdaa problem tree geedka mushkilada geedka midna waxa la yiraahdaa solution tree xalinta geedka ayaa la yiraahdaa waa arki doonaa hadda geed in wax lagu tusaaleeyana quraanka ma ka heli karnaa الله سبحانه وتعالى سورة إبراهيم وكل هاي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وحامركب كسر جيدا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار حق يبادر كلا أساس التسالي التوحيد كالشركة مركب جيد هذا نحط شارينه raad ayaa haysanaa maxaan ku raahdaa ama daliil ayaan u haysanaa oo quraanka kariimka ah Soomaalidan waxay tiraahdaa gar kasta waxa lagu gaaraa geed hoostiisa yiraahdaa dhaqankeedana waa ka in geedaha hoostooda wax lagu xalliyo marka culture ahaan waa haysanaa waxa la yiraahdaa marka mushkiladaha waaweyn iyo xallintooda waxa ka horeeya qorshe ayaa ka horeeya qorshe hadaan la lahayn hay'ad kasta wax barasho hadhow howlaheedu waxay noqonayaan kuwa isku dhaxyacsano hab hasaarda ama cashwaay noqonayaan hadda odayaashan sawirkan markaan ku fiirsano waa shan oday aad u dadaaleen waa muruqmaal waxay rabeen inay sameeyaan wada tareen ayay waxba qorsheysan ayay waxay yiraahdeen qoran waxay tir waqooyiga ka keenayna qoran waxay tir koonfurta ka keenayna the end ugu dambeyntiin marka baashi isqaban weeday marka waxbarashada daan la qorsheynin hadhow isma qabanayso maxaan ku raahdaa sida odayaashan oo kale oo daalay ayaa loo daali doonaa oo hadhowtiin wax waaye natiijada lama gaari doono sidaa darteed marka types of education problem noocyada problem halkay ka imaanayaan waa tii aan ku tusaaleyna darsinkii ka horeeyay dhanka carabiga marka la yiraahdo waa shan kelmadood oo xarafka meen ku bilaabanaysa waa mutacallimkii ardayga ka imaanaysa mushkilada la xiriirka ardayga waa mucallimkii isagana problem fara badan ayaa ka jira curriculum-kii manhajkii sidoo kale administration-kii iyo maxaan ku raahdaa maamulkii mudiirkii iyo learning environment iyo makaankii ama madrasadii macadkii goobta wax lagu baranay shanta marka problemada halkaas ay ka imaanayaan marka xal u baahan tahay si xal loo gaaro marka problem kasta oo shantaas ka mid ah waxaa loo baahan yahay marka step-ya lagu xalin karaa model ayaa jira marka modelka marka waa lix step laba u socdaan waxa ugu horeeya step-ka koobaad define the problem horta mushkilada inaan hoosta ka xiriirno isla garanno oo maxaan ku cudurka inaan ogaano kadibna waxa determine the root causes maxay sabab ku haysaa mushkiladaas halkay ka timid xididkeeda waa halkay inaan maxaa ka hoos galay markaan ogaano kadibna development waxaan ku sameynaynaa develop alternative solution mid kasta mushkilad kasta dhowr xal yeelan doontaa waa la iska reenaynaa kadib kan ugu munaasabsan selection aan ku sameynaa select solution iyadaan soo xulanaynaa markaan xulano kadibna implement the solution halkii maxaan ku raahdaa ayaan ku dhaqaaqeen aan fulinayn hadii kale lama taqooluna ma la taqaaluna ay noqonaysaa
markii la fuliyo kadibna dabagal lagu sameeyo evaluation lagu evaluate outcomes intaas marka waxa waaye steebada loo maray markii mushkilad aan xalinayno sidaas darteed marka laba geed aan soo qaadan doonaa geedna waxaa la yiraahdaa problem tree la yiraahdaa shajaratul mushkila la yiraahdaa waa tusaaleen waaye si aan u fahanno maxaan qoraa u soo dhaweyno midna waxaa la yiraahdaa solution tree la yiraahdaa geedka xalka la yiraahdaa hadda geedka marka u fiirisid qaybtan kore waa calaamihii waa mushkiladda maxaan ku raahdaa oo markaas jirta noo muuqanaysa marihii jeeda noo resultka noo muuqanayo mushkiladda marka calaamaha ayaa dhalay waaye intee salka ku haysa xiriirada causes al-asbaab la yiraahdaa intaas marka isla garano cause markaan ogaano mushkiladda waan u jeednaaye markaas waxaan ogaanaynaa marka mushkilad kasta halka salka ay ku hayso waxaa jira solution tree waxaa la yiraahdaa isagana waxa waaye haddii mushkiladihii aan ogaano xididadii haddaan ogaano rootka haddaan ogaano isla rootkaasaan hagaajinaynaa aan daaweynaynaa aan xalinaynaa aan horumarinaynaa waa solution xulul la yiraahdaa xulul kadib maxaa ka dhalana marka maxaa ka gurnayn maxaa ka mid ah xal kasta waa inuu melihiisa la yaqaano hadhow effects in la yaqaano korkaasaan ku taxay amar haddii aan tusaaleyno marka geedkii waa kanaa oo shajarta mushkiladaad sheegeen problem tree-ga waa kanaa مثلا Soomaaliya haddaan soo qaadano meel kastoo aan joogno inkastoo dadaal badan u jiro haddana tayada waxbarashada low quality way tayada aad ay u liidataa dad wanaagsan way jiraan asad wanaagsan way jiraan laakiin majority aan ka hadlaynaa maxaa cause geliya markaan dhahno oo meel aan fariisano tusaale ahaan waa intaan noo soo bixi kartaa waalidkay u laabanaysaa macallinkay u laabanaysaa manhajkay u laabanaysaa maamulkay u laabanaysaa waalidkay ugu laabanaysaa waalidka wacyigiisa waxa waaye iyo wacyi-la'aantiisa baa waxbarashada way saameynaysaa iyo dhaqankiisa dhaqaalihiisa waa socio economic la yiraahdaa yani arday waalidkiisa aqoon leh ama dhaqaalaha haysta oo ama akhlaaq wanaagsan oo maxaan ku raahdaa caruurtiisana dabagala ardaygaas maxaan ku raahdaa waa ka wanaagsanaanayaa inta aan ardayga aan haysanin inta aan soo sheegay macallinkana waa diin mid wax dhaqaajinaysa waaye haddii performance-giisa khibradiisa ay yar tahay hadhow arday fashil ku soo saara manhajkan sidoo kale waaye manhajka daba waxa waa dhaqan dhaqaalaha iyo mushkilada xalintooda iyo horumarka aad adduunyada xoogga loo saaraa haddii marka isagana pool u yahayna hadhow manhajkaas waxa waaye raadkiisa damama fiicnaanay maamulkan haddii economic wise uu fakero oo dhaqaale kali uu fiiriyo oo tayada waxbarashada hadda aan la socon waxa meesha on the ground ka socda hadduusan la soconin hadhow resultka muxuu noqonaa arday waxaa ku adkaanaysa ardayda soo bixida waxaa ku adkaan doonta inay waxbarashada sii wataan ama waxa waaye dhicitaankooda maxaan ku raahdaa inay ku fail garoobaan examination-ka waxa ugu sii weyn marka ujeedooyinka waxbarashadana aan la gaarin mar haddaan sidaan cudurka haddaan ogaana carruurta waxay tiraahdaa macrifatu da'sul dawaa hadhow marka waalidkiina waxa waaye barnaamijaan u diyaarin doonaa macallinkan tayintiisaan ku dadaali doonaa manhajka sidoo kale maamulkan waxa waaye visionkiisa missionkiisa loo hagaajinaa maxaan ku raahdaa dad khubaraa la keenaa intaas marka mushkiladihii marahooda kor ka muuqday hadhow wanaag iyo horumar iyo quality isu bedeli doonaan isla geedkaas marka wax waaye ayaan soo qaadanaynaa sidaan u sawirayna isagana inta marka waxaan ka dhigaynaa inta haday mushkilad ah markaan hagaajino miraha laga kor effect ka dhalan doona waxa kamid ah wanaag iyo horumar wixii haday jiro cudurrada inuu baabi'i doono waa sidii daawada cudurka la daaweeyay waxa ka sii weyn marka ru'yada ama visionka mu'assasad kasta maxaan ku raahdaa ay ku soconayso in soo aragta la noqdo intaas kadib idinku aad u mahadsan ballantu waa sidaas ku ogeyn waqul rabbi zidni cilman